السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك سو دوادا channel كينا ويغن ميديا. ما أنت واحد يسو قد بنيا موضوعه أفضوبيو إلا هذا عن فصيلات لوهين دكتور نبيل حلا يا منتو أرور أهيد مالين سنينا جنايو كون سقال بغل تدواتن شنتي وحالا صوغرا عيلين لينك دكتور نبيل قولكو دقايحي عالم مساريا كاسو أيو ديبتا جامعة قاهرة إنو ودن كتشيكوسلوفاكيا cilmi baaris ku saabsan nukliyeerka iyo diraasada kale ku soo sameeyo isagoo ku guuleystay wixii loo diray inuu diyaariyo oo saxaafadda Czech ayaa cabqarnimadiisii soo bandhigtay markii laylaynka laga soo wacay kadib dib dambe looma arag Dr. Nabil goortii ay jaamacadii Qaahira joog ka weyday ayay dhambaal u qodhay jaamacaddii uu cilmi baarista ka sameynayay ee Czech inay tafsiir ka bixiso masiirka Nabil iyadoo jaamacadda Czech warcelin laga waayay baala badan kadib waxay xustay in Dr. Nabil markii la soo wacay kadib uu xaafadiisa ka baxay dib damana u soo laaban haddaba xagee buu aaday Dr. Nabil maxay tahay xujada ka dambaysa in la waayo meel uu jaani cirib dhigay haddaba halkan waxaan ka ogaanaynaa in warcelinta ay ka bixisay jaamacadda Czech ay arrinkii fayday oo ah inay ogaatay in Dr. Nabil la soo wacay inta uusan gurigiisa ka bixin haddaba su'aasha la isweydiinaya ayaa ah sidee bay ku ogaatay in la soo wacay Dr. Nabil sidoo kale haddii ay boolisku sheegeen jaamacadda in la soo wacay inta uusan xaafadiisa ka bixin boolisku yaa u sheegay in la soo wacay Dr. Nabil arrinka ka sii qariibsan ayaa ah in xukuumadda Masar aysan xoog saarin baarista qadiyadda 1975 dhowr ayaa laga bixiyay kow in kamin ay Mossad u dhigtay oo ay halka ku dishay ama in dad lama yaqaan ay dileen ama in caqliga laga dhaqay oo xogtii uu hayay uu ilaabo ama inuu ku jiro xabsi reer galbeedka ay leeyihiin ama Israa'iil ku xiran yahay. Wassalaamu calaykum.